Inakeen waxaan aadaynaa xeebta gufaacada udgoon ee dacalka bari. Halkaas ayaan ku soo leersanaynaa mana fogaan doonno, waayo iyadaanba fogayn. Tagsi gaduudan ayaan jidka ka qabsanaynaa oo uu wado nin dhexdhexaad ah. Ninkaasoo in cabaara kadibna weydiinaya magacyadeenna iyo halka aan degannahay. Darawalku waxa uu sidoo kalena warsanayaa deegaanada aynu ka soo kala jeedno. Malaha waxa uu halkaas ka qishayaa qabiilka aan nahay. Waa run oo waa kaana leh meher hebel baa tihiin. Intaa kadib waxa uu nagula kaftamayaa afguri iyo sheekooyin lagu xanto deegaanada aynu ka soo kala jeedno. Isagoo sidaa noo madadaalinaya ayuuna geenayaa halkii aan rabnay. Lacagta gaari raaca kolka aynu u dirno ayuuna weydiinayaa magacyadeenna iyo inaan isku qoysnahay iyo in kale. Isaguna wuu iskiin barayaa oo waa aabbe haysta 5 carruur ah, balse xaaskii ay ka umul raacatay muddo markaas laga joogo 2 sano. Barashadaas kadib waa uuna macsalaamaynayaa. Waxa aan u luudaynaa dhankaas iyo xeebta. Hirarka badda ee jambiyada garaacaya ayaa indhahaynu qabanayaan. Durbadiiba waxa aan maqlaynaa mawjadaha badda oo ay kacsan yihiin. Waxaa intaas dheer xiitada ciyeysa oo dhawaqeedu dhaguhu ku raaxaystaan. Jambiyadaas hirarka garaacayaan inaanu fuulno oo aan badda quruxdeeda daawanno ayaan damcaynaa. Isla markaasna hirarka isag rogayaa aan maqalkooda ku raaxaysanno. Hase ahaatee intaanan gaarinba hirarkaas finiinkooda ayaa sidii xayska noo qoynaya. Kolkaa ayaan u baqayaa naftayda ah. Waxaan ka baqayaa dabaylaha oo markaas xooggan inay wax ku dhibaan. Waa si aanan filanayn oo lama filaana. Waxaan ku dhiiranayaa inaan burkaas iyo kuwa ku teedsan korno. Ammaanada waa uurka aad ii sido ayaan kuu saamaxayn inaad tallaabtaa boobsiiso. Waa rajo farxadeed oo aan wada sugayno, taasoo noqon doonta curad aan naciilin oo ifka nagu saddexayn doona ama nagu saddexayn doonta. Aniga ayaad gacanteeda qabanaysaa oo mar allaala markii aad liicdaba kor kuu himlinaya. Waxaad cugsanaysaa garabkayga. Dabadeedna waxaynu gaaraynaa fanaayada. Aan tagnaba hir xooggan baa nagu imaanaya oo na wada qoynaya. Waad igu soo cararaysaa oo laabteyda ayaad soo gelaysaa adiga oo dugsiin iyo diirimaad iga doonaya. Waxaa farxadiya inaad xaggayga u soo cararto, waxaana murugii ah inaad xaggayga ka cararto. Weligaana ha samaynin midda dambe. Wax badan ma sii joogi doono, sababtoo ah mawjadaha kacsan awooddooda. Baddii aan farxadda u soo doonanay baa cabsi weyn nagu beeraysa. Waxaan jeclaa adna aad jeclaad inaan kabaha siibanno, kadibna annagoo cagacad aan xeebta ku lugayno oo aan sheekaysanno weliba aan kaftanno. Sooma ogid inaan qosolkaaga xiiseeyo. Waan jecelahay mar kasta oo aan kaa qosliyo, maxaa yeelay ilmaha yar ee calooshaada noogu jira ayaa nuuxnuuxsada. Waxaan filayaa in nuunaheennu uu mar kasta qosol la galgalanayo. Dhakhtar ayaa adiga kugula taliyay inaad socod badan samayso. Intaasba inaan xeebta ku samayno ma dhicin. Waan soo noqonnay annagoo bela arag, rajadeenna caloosha ku jirtana ay noo badqabto. Macmacaan lagu wareejinayo xeebta ayaad jeclaysanaysaa annagoo soo baxayna. Kadibna waa taa basbaaska iyo dhadhanaanka aad jecleedee waad soo qaadanaysaa. Socodkii xeebta ee noo suurtoobi waayey waxaynu ku bedelanaynaa laamiga oo aan ku lugayno ilaa aad ka daasho. Kadibna gaari baan u raacaynaa gurigeennii dhirta badnaa ee duurjoogta qaar ay noo joogeen. Qubays, duugid iyo nasiino dabadeed waxaad iiga sheekayn doontaa warqaddan oo aan 3 sano ka hor kuu soo qoray. Waana warqaddii jacaylkeenna. Waana waagii aan jacaylkeenna qaangaarka ah barbaarinaynay oo haddeer ah.